maayirka degmada Burco ayaa ganacsatada xaafadda Saylada kala wareegay boqol lowr oo carakaawo ah kuwaasi oo ay ugu talagaleen in inta dawladda hoose dhisayso lagu daro inta u dhaxaysa Saylada iyo kantaroolka. maayirka degmada Burco ayaa uga mahad celiyay sida ay bulshada gobolka Togdheer uga qayb qaadanayaan dhismayaasha wadooyinka. dadku wax ku wanaagsan yihiin in wixii waxtara ama wadooyina ama wada qabsiya in laga qayb qaato. boqolka lowr carakaawada waa dhigaynaa wixii ka dhimana dawladda hoose marti uga nahay inay ku darto. deeqdan aan ugu talagalnay wadada waxalka Saylada halka afkeeda ay go'an ay ka bilaabmaysaa ilaa waxaan ugu talagalnay kantaroolka bridge-ka laga sii baxay Saylada xoolaha wadada ka baxday weyn intaas ayaa waxaan ugu talagalnay boqol lowr carakaawa Allahu musta'aan boqolka kadib tan imika tii ugu dambeysay maaha waa tii ugu horeysay waxa kalena waan ku maqanahay maadnaqayna saaka boqol lowr oo carakaawa bay ku deeqeen oo ugu deeqeen wadada laga bilaabo Saylada ilaa kantaroolka Oodwe waana contribution-kii labaad ee wadadaas Saylada oo 3 kiiloomitir ah lagaga qayb galay. waxaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaanu dadweynahayagii iyo annagii aanu ku wada socono oo heshiis ku nahay inaanu wada sameeyno. dhanka kale waxaa saaka la bilaabay dhismaha wadada Hodan oo iyadu wajigii labaad la dhameystirayo. wadadani ay qayb weyn ka qaateen bulshada kala duwan ee xaafadaasi ayaa waxaa saaka si rasmi ah looga bilaabay dhigista carakaawada. gudoomiyaha xaafadda Faarax Omar iyo gudida xaafadaasi ayaa uga mahadnaqay maayirka degmada Burco sida uu ugu dhiiraday wadadani oo iyadu tagta xabaalaha isla markaana ay xilliyada roobka dhibaatooyin kala kulmaan bulshada maraysa halkaasi. ma jirtay xabaalaha ee dhex ma jirtay Hodan Qaylo wadadaas waxa ay noo bilaabay dawladda hoose waxa ka wada qayb qaatay oo iska kaashaday markii hore carakaawadeeda dawladda hoose iyo dadweynaha xaafadda degan golaha deegaanka degmada Burco ayaan adeegada uga mahad celinaynaa wax qabadka ballaaran ee ay ka wadaan magaalada gaar ahaan xaafadayadan. wadadan waa wada halbowlaa waxa halbowlo u tahay marka horeysa magaalada waxa weeye halkan xaafadan waa xaafadii Hodan waa xaafad ballaaran marlabaadka wadadan waa wadada xabaalaha tagta wadada ilaa xabaalaha socotay weeye wadadan waa wada halbowlaa oo wada muhiima dadka dhintay dadka noolba wadadan waa wada anfacda. waxaan leenahay wax qabad wanaagsan wax qabadka ballaaran ee ay dawladda hoose magaalada ka wadana isagana waanu soo dhaweynaynaa. laga dhameeyay maayirka iyo kawsarka maayirka dawladda hoose Maxamed Muraad waxaan leenahay waan barbar taaganahay aad iyo aad baan ku barbar taaganahay guul baan ku rajaynaynaa. si kastaba ahaatee bulshada gobolka Togdheer ayaa u muuqda kuwa u jeestay horumarka ayagoona ka qayb qaadanaya dhismayaasha wadooyinka. Shaafici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Soomaali News, gudaha magaalada Burco.